Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan wareysi la yeelanay siyaasiga ugu daadayar Somalilan Ayaanle Jaamac Saalax, halkaas oo kaga hadlay arrimo dhowr ah ay ka mid yihiin murashaxnimada Maxamuud Xaashi ee guddoomiyenimada xisbiga Kulmiye iyo xaaladda dalka ku sugan yahay. Waa kan isagoo arrimaha ka hadlaya. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام يا شعب كرير سوماليلاند ميل جوغان دليا دبدبا مقعيقو Ayaanle Jaamac Saalax oo ku magac dheer Ayaanle Nuuraani ahna siyaasiga ugu daadaya siyaasiyiinta reer Somaliland wuxuu jirkayga jiray daaran yahay aan saxaafadda ugu yeedhay inaan ka hadlo loolanka siyaasadeed ee ka dhex taagan xisbiga Kulmiye soo wajahay markuu ka hadlay siyaasi Maxamuud Xaashi damaciisa musharaxnimo horta waa mid xisbiga Kulmiye waa xisbi ay laba reer ku gashay hagbad waana taan saamaxayn in madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi aanu isku soo sharaxi karin mar labaad heer labaad aanu soo sharaxi karin hadduu soo sharaxana oo xisbigu baaba'aya midna waa mid oo waa Maxamuud Xaashi iyo Maxamed Kaahin oo ay ka dhaxayso loolan siyaasadeed waana laba nin oo Somaliland dayax gudcur iyo cadow kala ah haddaan ku horeeyo Maxamed Kaahin 3 sano oo dhow ayuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha weli lama hayo meel uu ka muuqday aan ahayn madaxweynaha dabadiisa maxay haytooy wadankii uu haystaa rabshadaha ka jira beelaa isdilaya hadduu alle ciidankii leeyahay jabhadaha ka dilaacay intii xukuumadda Muuse Biixi haysay wadanka uusna u ahaa wasiirka arrimaha gudaha meel wax ka qabanayo iyo laba beelood heshiisiinayo iyo meel uu wax ka tarayo oo ka qabanayo oo ka muuqanaya ma jirto marka ya Allah waxaan leeyahay dalkan uu ma qaadi karo nin sheegta mujaahid oo ka dambeeya madaxweyne Muuse Biixi ma qaadi karo dalkan wuxuu u baahan yahay siyaasi rugcadaa oo siyaasadda arrimaha gudaha iyo arrimaha dibaddaba dalka ka dhaqaajiya oo ictiraaf la dhalin kara uma baahna mujaahid dambe dalkan umana qaadi karo haddaan imaado siyaasi Maxamuud Xaashi waa caddo waa nin Somaliland oo dhan shacabkeedu wada yaqaano waa nin xukuumaddii hore ee Silaanyo wuxuu ahaa wasiirka ayaa laga dhigay Silaanyo ka dhigay wasiirka duulistii hawada waanu arkaynay siduu u dhaqaajiyay wasaaradda wuxuu yimi wasaaradda waxa laga dhigay wasiirka madaxtooyada waynu ogeyn sanadihii ugu dambeeyay xukuumaddii Silaanyo waxaa ninka keliya ee dalka dhaqaajinaya maxay hayto dalka kala waday waxaynu arkaynay oo caddaana in hadduu alle ciidankii leeyahay maalin dheel aynu daawan jiray saacad kasta iyo siki kasta aynu daawan jiray isagoo gacantaa bidix ku saxeexaya heshiiskaasoo ah mid Somaliland horumar u soo kordhaya waa nin la aydsan yahay oo Somaliland waxqabadkiisu aad loo wada arko ta kale aan iman doonaa waxa weeye waa ninkaasaa musharaxa cid kula loolami nin baan arkaya hadlaya oo maxay hayto leh